Assalaamu calaykum. Maadaama aad soo ogaatay ujeedada aad nolosha ka leedahay, waxaad dhabcaan aad u rabto nolosha, isla markaana aad aaminsan tahay inay suurtagal tahay inaad gaarto. Haatan waxaa la gaaray waqtigaad ogaan lahayd sida saxda ah ee loo dejiyo hadafyada. Muhiimadda ay leedahay inaad hadafyo dejisataa. Haddii aadan yeelan wax hadaf ah, kuwaasoo ah waxyaabaha ugu xun ee kugu dhici kara. Dadka qaar ayaa u dhagarooba naftooda oo isdila, sababtuna ay tahay ma garanayaan waxay ka qabtaan nolosha, kuwaasoo dareemay inay ku fashilmeen nolosha. Haddii aad dejisato hadafyo, waxaan kuu ballan qaadayaa noloshaada inay noqon doonto mid macaan leh oo farxad leh. Dhacdooyin badanaa way ka buuxaan oo ku dhiirigelisa. Haddii aan ku siiyo tusaale, haddii qof kaliya uu ku fikiray inuu noqdo hogaamiyaha gudaha waaxda uu ka shaqeeyo, xagga kuwa kalena aanay isku dhibin inay noqdaan, qofkaasi wuxuu maamuli doonaa noloshaada sanado kadib. Haddii qofkaasi maareeyay inuu noqdo hogaamiyaha kooxdaada, sidoo kalena wuxuu dejin doonaa dhammaan jadwalka kooxda, wuxuu go'aamin doonaa saacadaha ay shaqeeyaan iyo tirada maalmaha ay shaqeynayaan. Qofkaasi iminka wuxuu kontroolaa qayb weyn oo ka mid ah noloshaada. Sidoo kalena meel kasta oo booskaagu yahay ama qofkaa sareeya ama madaxdaada, wuxuu kontroolaa qayb weyn ka mid ah noloshaada. Maamulaha meeshaad ka shaqayso wuxuu qayb weyn ka yahay noloshaada. Madaxweynaha dalkaad joogto wuxuu saameyn ku leeyahay wax kasta oo noloshaada ah. Ma doonaysaa inaad kontroosho qof kale nafsadiisa? Waan doonaynaa dhammaanteen, laakiin maxay inuu xal ah? Xalku wuxuu yahay 1. Hadafyo dejiso. Markaad dejisto hadaf, ku dhaqaaq oo ficil samee. Waxaan ku leeyahay horumar wanaagsan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.